degdeg warqadii soo saaray xasan munaafiq warqadaani maxay ka dhiganta waxa uu yiri waxqad baa keenaya ragii hubkan lahaa ee ganacsatada hubkaas ragii lahaa miyaana garanayn muxuu warqada ugu qori waayay ina cali adoon liimaan shuro iyo mahad salaad iyo adigoo mulkiilihii hadduuba iska reebaya asagu oo kursigiisa u baqayo muxuu saddexdaas magacooda ugu qori waayay miyaan la garanayn anigu waxaan garanaya ayuuba oo adiga shacabka aad garanaysid oo qof kasta garanayo oo qorqoryooyinka u gudbiyey biyaa xasan oo hadda ka baxri baad goobaysaa ka bacdina oranaysaa hubka cidii lahayd kontrabaan buu ahay waa la keenayaa hubkaagi baa kontrabaan ahaa Soomaa waa la keenayaa ma reexaan oo keena taasi waa mashquulin hadda ay sheegaya duulaan baa soo socda duulaan xal oo socda oo waliba awood oo dhan isku geeyay faafahinta sare hadda ku siinay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanaha qodobada ugu doorkooda ku dul istaagi doona waxa kamid ah gudiga ay direen gaangiska federaalka ee Soomaaliya oo ay u direen caabud waaq oo ay dheen hubka noo keena waa dul istaagayna gudigaas iyo qof kasta ay qabiilku yahay sidoo kale waxa dul istaagi doona yaa meeshaas loo dirsaday oo la yiri hubna oo keen waa horgalkii horgalada waa horgal international ama Interpol hadaad maqasheen ma aha horgal markaa maqasho ku soo baxaya ina korayo wax la mid ah no kani waa darajada A horgal daaro dadka u sareey waa mudana fataaj wasan mesela tagay caabud iyo waxa uu kala kulmay waduu istaagi doona shirkada loo fadhiyo ee guriga ugaas Maxamed ka socda isagana waa dul istaagi doona sidoo kale waxaan dul istaagi doona qorshaha dhabta ah ee istiraatijisan ee xasan ka gaaray hubkaas u soo ceshan lahaa ama ku burburin lahaa hadda xaalku kuba soo noqonaya maaha waa sidee u burburina ayadana waa dul istaagi doona waxa kale dul istaagi doona qoliyaha halkan iga soo qanuudayay oo mid yahay xildhibaan Suuriya leeyahdo Saleebaano asna xalay igu soo qufacay laba kalmay waxbaan dhihi doona dhagax yar buu soo tuuray dandan dambasyaal waa huwin doona asagana waa soo laabanayaase an halkan iyo caabud waaq aad intaan fartaag iyo gudigiisi iyo garin iyo hadii horgalnimada weyn garin ninka la yiraahdo aadan digsi waa magacaabay gudi aadan digsi ninka baarlamaanka fadhiya ee u fadhiya gaangiska federaalka ay xamar saldhigoodu yahay u fadhiya dawlad ma oran karnee u fadhiya baarlamaanka gudi uu magacaabay gudiga marka nin baa qabiilkiisa ku sheegay gudi marka la magacaabayo soo isku dhafan oo dadka wax haysta iyo kuwa ka maqan yihiin dad u dhaxdhaxaada soo lama dirjin iga dhageyso waxa uu horeeyay xildhibaan Yuusuf Geelle ugaas waa garanaysaa waa dhagay waa duduble falaysa minna nama soo galaanay in hawiya lambar labo Maxamed Cabduqaadir Xaaji Jeego waa shaanshi falaysa minna nama soo galo General Bashir Abdi Maxamed Bashir Goobe yibir iyo hawiya isku qabsada wuxuu yahay anaga nama soo galo waa falaysa minna wuxuu yahay kuma haysano nama soo galo واقرتي ياسين عبد الله محمد ياسين فري وويلكي نسكو حقيقي او هان جيري او هدي الله كو رويhay waa ياسين فري waa wacaysle oo waa nin hawiyaayo nama soo galo hal dhinac maanta tirniyo waa 7 xubnood ogow inta iga haysa ياسين فري aan ka marayo afar waa ku tiriyay jaa haye xildhibaan Xasan Xuseen Ali Xaaji waa raxan weyn falaysa minna wal digsi nama soo galo واقرتي عبد القادر عمر معلم waa raxan weyn فليس من وانا مرلح اسنا ورحان وين فليس منا نما سوغو يا ugu dambeeye xildhibaan Qaasim Abdi Karim Cilmi waa marreexan oo uga dhac ninkaas aan ku leenahay waxaan isiri wax horgal ah xildhibaanadii gudiga la qabanayay markii horgalka weyn laga tago horgalka weyn hadii la ku rooyay international ee fartaam kaga tago midda kan la ka helay baasi kana aan la ka helay kana aqoon u mari hadii diisan hadda ma sheego sida aan fartaag u qeexayo uma qeexi karo laakiin waxa loogu soo daray meeshuu qabaa waxa loogu soo daray 16 xildhibaan bay federaal ku leeyihiin mareexan 16kii 12 baa banaanka taagan habadkan anu ma garan laakiin asaas sheegi doona markuu hadlaan arki doona uur dadan ma qaayeen taasi waa gudiga aad digsiino soo magacaabay waxay ka dhiganta hubka wax iigu dooda
inuu isiiyo baan masal yaado caabuda ugu dirsaday laakiin rag igala dooda raggii dhintay ma dirsanayo bay tan ka dhiganta waxay tageen caabud waaq guriga ugaaska la tagay waa la qadeeyay ugaasku wuxuu yahay galabta aan isku nimaano ka wada hadalno 15 nin ee mareexaan ee dhintay magtoodii iyo wixii ayaga loo geystay idankan deegaankooda lagu soo weeraray ayaguna waxay geysteen aan ka xisaabtanno gabalgaabkii aan isku nimaano hadda la fadhiya xilligaana la fadhiya ugaas maxamed yaa meesha fadhiya usha meeshu dhigto kama kiciyo anaa idin iri usha meeshu dhigto kama qaado waa garaajada garaad caliga labaad weeyo sare ilaa yaday ninkaas marka waa cadeeyo mowqifkiisa de waxay tahay waxa igala hadashaan biyo waa raggii dhintay oo la aasay ee bakrada lagu dilay ee hubka kontrabanka aan ku sheegteen lagu dilay ee hubka argagixisada ka furna lagu dilay ee hubka anaga lagu soo weerar lahaa lagu dilay gaalkacyo lagu weerar lahaa lagu dilay raggaas way u baahanahay hadda magtooda hadda gala hadlu taagan hubka naga daayo hubka mooryaan baa qaatay hubka wiil mooryaano inda gadgudano aan la aqoon baa qaatay oo mareexaane oo meel geeyo ma qaane maandooyina wiilashii dhintay igala hadlu taagan yahay ugaas wiilashii dhintay igala hadlu kugu maalay halka nooga hay waaye qodobka la aad u istaagay marka xasan iyo istiraashada u dhintay marka xasan xogta waxaan ku hayaa xogtaas fariinta isgaarsiiyay fariintaas reerka ay ku socoto sheer galay oo isgaarsiiyay xogtan hayo waxa weeye in la tashaday haddii aan ku rooyahay gaangiska federaalka ragga gaangiska beesha aad garanaysaan mahad ka mid yahay ka mid yahay ninka la yiraahdo liibasho ka mid yahay ka mid yahay ninka la yiraahdo inaado ka mid yahay ka mid yahay haddii aan ku rooyahay sambrosh ka mid yahay waa la tashaday waxa la hubkan gacantayda waa ka baxay hubkaani gacantayda waa ka baxay barya iyo faatixana kuma imaanayo waaga aan option sameeyna hubkan awood buu u baahan yahay alisti madaxweyne waliba xogtaas waxa soo jeediyay inda adaygaas in la weeraro ninka afhayeenka hiraab loo yaqaano ya sambrosh iyo mahad salaad ninka soo jeediyay madaxweyne baa la yiri hubkaani faataxa kuma soo laabanayo laba mid noo banaan inaan waa faraha ka qaadno annagana la kulaayo oo xukunkana la kaga qabsado oo muqdishona la kugu soo galo halka loo hadlaya iyo in aan hubka burburino oo wax allaala waxaan ciidan hayno geyno yaana hubka qabsana isagoo nabad qaba yaana la wareegin laakiin rasaastuna way dhacaysaa way nagu dhacaysaa wax yartaa naga galaafato wiilal hawiyaa iyo aan dab ku shubayna anagu rasaastaasi ha qaraxdo ha shiiranto kow qoryahana waxaan burburin karnaa burburino waxaan qabsan karnaa aan qabsano aan isku riiqano intii xamarna ku imaano fahim kulf waxa la yiri macawusley horta waa ogahay oo ninka la yiraahdo sambrosh xawaalna wax kama galo macawusley kama keeni karo laakiin xasan wuxuu yiri qof abgaal oo macawusley ama waxa isla ahaado ama harti abgaal ahaade meel ay joogaan baa la soo guro furimaha ka soo baxaan baa leeyahay furimahan sheegayay oo ahaa argagixiso soo baneeyay argagixiso kale oo daarooda jirto ku sii wahay argagixiso daarooda ayaa taa iga daran ku sii wahaystay marka macawusley laga diyaarinayaa ilaa iyo waxa la galaya diyaar ku rooy xawaale sambrosh loo diray inuu ka keenayso u malayn mayo xawaale saar heer u fudud maaha mahad salaad cayr baa loo diray liibaan shuruq sacad baa loo diray adigu diyaar garow qabiil oo qaab qabiila oo waliba la yiri technique waaweyn dawladdu inta badan ma haysato beebayaasha xukunka waxaan ka ahayn oo danab iyaan ku xoojinaynaa ciidamada gorgor iyo dawladda ku xoojinaynaa infantry ahaan technique-da midda qabiilka isticmaalayna midda cayr ma isticmaalayna midda saleeman ma isticmaalayna midda saleeman ma haysta saleemanka waxa hor fadhiya ninka la oran jiray waxa la mar laayahay qorqore midda waxa isticmaalayna saacad ma isticmaalayna midda abgaal ma isticmaalayna technique-da hawiyo dhan ma isticmaalayna infantry-ga waxa isticmaalayna dawladda iyo macawusley hadduu raxan weyn yahay hadduu jareer yahay waxba reeban mayno hubkaana soo burburiyay taas horta lagu ballamay go'aana meel u yaala shirkan iyo guddigan iyo wax haddana loo soo diray ee hordalka weyn lagu dul wareegayana maaha macno weyn kuma jiro waxa la waa ku mashquulinayna
واكو مشغولين ورفرين تاميغا هايسان إلهو مركتا دارو إسكارسي حقسا وحنكو هياه لكاسي ويرك يدكسو صعودة حقا الله وعيدي هياه oo inkastoo aysan fiicnayn aan ka sheego laakiin maadaama aan hoog iyo baa ku socday mawjadaha ku socday in sheegay waa ku khasbanahay wixii khayr loo idinka faa'iideeyay in sheego wixii dhimanna aan halkan ka dhaho ka diyaar garooba haday Puntland noqotay iyo haday Laascaano noqotay Sool ciidanka jiray SSC noqotay iyo haday tiknikadii mudug taalay noqotay intaba waa la diyaar gareeyay wax allaala wixii halka u yaalay nimanka la yiraahdo Reexaan ayana heegan baa marka horta awood yari idinkaga baqi maayo halkan waxa isneeber yaalay dhowrka boqol ah il kala soo baxaana waa ku dheeriyihiin taasna horta ku seexo wixii kala jiifo oo ilaa bari oo aan cildirayaan marka xilliga waxa soo dhaw xilliga dhigtay hebel kaluunow hebel faloogow hebel salaayadow waa soo dhawda waxaasina waa kayd kale ku yaala salaayadii iyo team kaluun iyo team kala soo kiciyo wili umaanu tagin laakiin ciidamada diyaarka rijliga ilaa saaxo ilaa godod iyo ilaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa afka diyaar ku rooyahay galdogob iyo afka diyaar ku rooyay Laascaanood inta ciidamada meelaha ku diyaarsan yihiin dhan diyaar iyo ilaa nugaal iyo diyaar ku rooyay bahar wixii ciidan rijli ahaa oo dawladdu awalba ka diiwaan gashanaa ee Puntland lahayd waa diyaar gareys oo ama qabiila oo diyaar gareys ama ciidan dawladda oo diyaar gareys wixii hadii la ku rooyay halkaan iyo iska jiray bahalkiina ayaguna hadal ma oo mareexaan awalba dhulka wax kama ool marka taasna waa khayr oo negative kaliya ku sheegmayo taana niyadaada gali fariintan inta hore dagaarsiyo dagaal ha loo diyaar garoobo dagaal qadiyada loo diyaar garoobo anagu maanta de ilaahay oo noo caroonaya anagu nabad raadina anagu saami aan leenahay هو أنا كنت لها هو أرجع سلوا وذي هو والالكا يقال كحلو الله لها هو مريحان الله لها هو ومدى الصومالي هو ما لها أنا وقع عنكم هو لعبت الصومالي اللي جاب حشران عنكم قبل أن ما أنت حولا كده عني أجرنا سام الما أنت ويل كسعادة لسوق حيني محاوس حيني محولا كده وامي كان عير محولا كده وامي كان وعايز لي لك حيني آذن يبال هو يدي وقرينا يو أرجع اسمه قرينا يو محوران كدعنا ما هو يدي آد وهو يدي حريص حسن باوضة لكن ميلو كل من أيام وسخير كهري ميلو كل من أيام وسمسم كهري ميلو كل من أيام جيري بلا شرف كل من أيام شرفتوا جيري دو مركي حق تهي شرف في الليل مركي حق درس تهي شرف ماي أنا وسوحا ديواني أنا وضلك يجد في عين غنيمة كلا هوس أعتبرك غنيمة دي عندها حرية وغيدي روب كان داعي maanta waxaan ka qoray nin baa hadda kor waxa laga sheegay ilaahayga reehebel inta tareeysiyo reehebel bi anjirka beelay kugu sugahaya marka haatan ilaahayga hadii la ku rooyahay mareexaan roob u diyay nimanka la yiraahdo dhulbahantana isaaq u jafjafayo ummadii kale iyo majeerteebo ku sugayaan maay marka roobkan way roobkan la sugayo midkaan qaniimada dambe kana tuktukro kana waliba tuktukro alaab wada qoofile ma hoos socota لو ديال جروبان لاي تاغي تكو غدبيا قودكاسنا دغال لix meesha ka tiin dagaal aadka ko gaada waa ka baxay qodobka saddexaad aad u istaagayo wiilka kaga muuqdo wiilkan hebalow suuriya la yiraahdo waa Saleebaan waa reexis sida la sheegay halay uu soo tuuriyay boos uu soo qoray anoo taageeray ninka la arkay ninka la yiraahdo ma qorqor ba Facebook la ku siiyay inuu madaxda wax ka sheeg wiilkan wuxuu ka mid yahay qolada hubkan iyo waxaan ku ahayd limaashuuq wuxuu la ahaa jeeb ugu jiray oo gondabeeyo waa xildhibaan Saleebaan dhul su'aal dareen weydiiyay marka horta qorqorka aniga waxay la soo lacag buu siiyay leedahay horta aniga qorqor yaa lacag badan qorqor iyo aniga yaa dhaqaala badan sabab iyo sabab ku dhaaf you know me ma ytaqaana taani ma ytaqaana saaloo weydiinay qorqorku soo midka galmudug madaxweynaha kama wana saaxiibna yes wana asnaqana yes laakiin galmudug ashuurna ma qaado eela boorna ma dekadna ma xagee aniga qorqor xagee siini taas waa mid dallaa haddaan sheegay qorqor inuu galmudug wax u qabtay
إنه دجال سكيان وصل له ربين إنه مريحان يجوا على يخلدنا يعني كل أحد هو بكوضيان إلهي بس يفرح كقادير هو كأدربتين أقل من كنت بيسانو مش هيدرك هو يرنا سانك هو يرنا دمي مانشا قرر هدول عدو احتري يهدول عدو حسيي هذه الأيوب والعكسية قرر مكي فرماتشو انتو كتوري أو سيدي قرر بكو استعمالي كهالجادي قرر ميسو هين كي انتو كسوقفتي فرماتشو وهيوصل نسي كوهية حلبان كارجي ميسو هين ميسو مرور هين قرر يعني أنا على خطوه صدرنا يو قلب ذبح كوامين وداريها لكن ويلك يدك لا دستايو كان عصدانا هايو أكل حصان تاسوا مين طلبا والأنو غرغر وحا أن كتايرا واحد درس كاجا واحد قبت كيس أو حتى كاجا أنا قد درس كاجا قولي لك هدي اللي جاب هين ولا جاي زيها دبعت يقول هدول اللي ضي هين أي في عن والأنا يقلم وقت غرغر كوريسي واحد أغاني قلم وقت عالي صومري في غيب صومري في حاف صومري في عبد الكريم حسين قول صومري أفر تاسع يا سعد بها هاي ما ماشي أفر طبعا سعد بها هاي قل مدوق براح لي إلا قنصور بك شغيتش ده بقى عليها قل مدوق على هذا أنت سليمان دقول هل كأود تقول له حبيبي أكثر الجارو وحنا قلت لي حملي حد الناس جاي هرجع جالسين روس مريب وجودوا أنت أهرسون هاي السنة أهرسون والجماعة رير ضبك قاطع هي متي رير ضبك قاطع متي ملح ويني تكسر تجا قال كعيو روس مريب ما كان متي فقل مدوق أفاتش قل مدوق ما يلا سيحلم قل مدوق تما أنت مدحتويون كان أو قف كمرتين جري كنا يري كنا ومن ده غرغورة حجاسي حش ده إنك قل مدوق هم الله يسمع هيدين دولة دي عبد القاسم وكلا هيدين ورغف عن إله قف كان بني آدم كأشكر إنك يحترم الله لا مشكريه هذا نص الله يضحي هنا كي أديك صور الصياد اللي بان كادجا أنا نوتر على ما في العيب كوسي هو العيب نسي أنا كل عقب بدن ما هو إحنا ترى أنا أصلا كلام كرني أنا قاعد كذا يسمى على بور هاي سنة سبوني وسوا كذا ما يتقين أقف كان هاي شخصيا أكون يصاب بوغو شخصيا أنا هاي سعيد أنا هاي وحليتات هاي أديك بقى في فدان ترى هاي سنجالة كان صدق عيا أو وده ما كان يسعتي ماشي يا موها بحضر يبيح من يسعتيني رفك أركان مدة أو سنجالة كان صدق عيا هو بيهدأ هذا يصير ماشي ولا مدة اللي بير مريض تكذب مريض حقيقة حيسي يعني هو حيسي يا ورد سوى حيسون دي يا غرقان حقاقو صوب يا بي وباش عالم كسر بالكي بوجل مدوك وديكو ولا لي وسعد كان وسليمان كان وعيل كان ومحتاج يقول لي ويجل مدوك باتي ولا ريال ناس ديكو والله أرض وحمدية وحنصر هاي باتي وحاتي على شغل سيادة الله كريم بس احنا أصلا ليه عجويني على شغل سيادة باتي دمنا كان حميسان شعب كان حميسان جنجي سراتي توقع النص هاي انت اصلا كلها هاي انت اصلا حوقعتها دقي حنكا هاي قصة رايح دبها الضو حقها كيم هذا يا تقاني الهي ما راح شلهك ما راح يغاركم حار ما وجهي مرسلا انا تم مقام بحانا وجهي حارمي سين الهي ما كنت دارت اله فتاه فرح قلني فتاه فرح لك اليوم ما تقاني انا غير انا اقون وانا كدح قدين مت والله ما كدح قدين يا هذا مقعي قدام سوقات اما حتى تمام على سوقات نسخ واي سلام يا انت افرنت يا جالسي سوالك سوالك سنجا الله يمسي تشاو